Duulaankii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee dalka Ukraine waxa uu keenay in dib loo qoro istiraatiijiyadda amniga qaranka ee maamulka Biden sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh arrintan. Nuucyadii hore ee qoraalka oo weli la soo gabagabaynayo ayaa muujinaya sida mudnaanta maamulka ay isu beddelayaan ka jawaabista dagaalka Putin ee dalka Ukraine iyo iskaashiga sii kordhaya ee ka dhexeeya Beijing iyo Moscow. Daabacaadda dukumeentiga oo asal ahaan loo qorsheeyey in la soo daabaco January la soo dhaafay ayaa dib loo dhigay kadib markii saraakiisha Mareykanka ay rumaysteen in duulaanka Ruushka ee Ukraine ay u badan tahay arrinta tan inay la xiriirto. Hadda si weyn ayaa dib loogu qorayaa si ay uga turjunto siyaabaha dunida isku beddeshay tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Dadku waxay yiraahdeen ilaa hadda ma cadda goorta la daabici doono. Mid ka mid ah dadka ayaa carabka ku adkeeyey in laga yaabo inuu weli isbeddelo kale uu soo baxo. Qabiil qoraalka cusub waxa uu xooga saarayaa muhiimadda ay Yurub iyo Aasiya u leeyihiin danaha amniga qaranka Mareykanka, taas oo laga beddelay nuqul hore oo si qoto dheer diradda u saaray Shiinaha iyo Aasiya. Halkii la dhimi lahaa muhiimadda Shiinaha, dukumeentigu waxa uu ku doodayaa in dhacdooyinka Yurub iyo Aasiya ay si qoto dheer isugu xiran yihiin sida ay dadku qabaan. Waxaa soo saaray maamul kasta tan iyo madaxweynihii hore Ronald Reagan. Istiraatiijiyadda amniga qaranka ayaa bixisa mid ka mid ah daaqadaha ugu muhiimsan ee fikirka aqalka cad ee arrimaha siyaasadda dibadda. Dukumeentiga oo uu amray Koongareeska ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo sharci dejiyaha inay qiimeeyaan mudnaanta miisaaniyadda maamulka ee amniga qaranka si loo caddeeyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay xulafada la howlgalayaasha iyo cadowga, iyo in la hubiyo in wakiilo ka socda dhammaan hay-adaha amniga qaranka Mareykanka ay hal cod kula hadlaan dhigooda ajnabiga ah. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa dhowaan khudbad uu ka jeediyey siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Shiinaha waxay soo jeedinaysaa hal qaab oo suurtagal ah oo ku saabsan habka dukumeentigu uu u miisaami doono hanjabaadaha Beijing iyo Moscow. Ruushka Blinken wuxuu yidhi waa khatar cad oo jirta, halka Shiinuhu uu yahay caqabadda ugu daran muddada dheer ee nidaamka caalamiga ah. Asal ahaan istiraatiijiyaddu waxay u badan tahay inay ku doodo in tartanka Ruushka ee Yurub ama Shiinaha ee Aasiya aan wax looga qaban karin si gooni ah. Annaga waxaa jira heer gaar ah oo isdhexgalka istiraatiijiyadda aan ku raadinayno Yurub iyo istiraatiijiyadda aan ku wadno Indo-Pacific. La taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan ayaa u sheegay suxufiyiinta May 18 madaxweyne Biden awood gaar ah oo si dhib ah u tolay labadaas ayaa jirta. Waxay la tahay inay noqon doonto astaan u gaar ah siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaan duulaanka Putin ee Ukraine. Wuxuu keenay hamiga Shiinaha ee ku wajahan istiraatiijiyadda dimuqraadiga ee Taiwan oo ay diradda saaraan siyaasaddejiyaasha Mareykanka xitaa ka hor inta uusan dagaalku bilaaban. Saraakiisha Biden waxa ay ku doodeen in Shiinuhu ay u badan tahay inuu arki doono jawaabta Mareykanka ee xiisadda Ukraine inay wakiil u tahay siday ula macaamili doonto tillaabada gardarada ah ee Beijing ay ka qaadi doonto oo ka soo horjeeda maamulka Taiwan. Horay waxaa jirtay warbixin aanu halkan ku baahinay taas oo aanu ka soo qaadanay jariiradda caanka ee Foreign Policy. Ciwaankeedu waxa uu ahaa Shiinuhu ma waxa uu ka baranayaa duruus iyo casharo dagaalgelin ah duulaanka Putin ee Ukraine, taas oo ay ka dhigan tahay mustaqbalka qaabka uu wajihi doono qaabayntiisa duulaan weerarka ee Taiwan. Tan iyo markii dagaalku bilaabmay, saraakiisha Mareykanku waxay u arkeen dhowr horumar oo u diraya fariin awood leh oo loo dirayo Beijing oo ay ku jiraan cunaqabataynta degdega ah ee ka dhanka Ruushka iyadoo lala kaashanayo xulafada Yurub, xoojinta miisaaniyadda difaaca Yurub iyo rabitaanka iyo xulafada NATO inay ka tanaasulaan 10 sano oo dheeraad ah siyaasadda taxaddar leh si ay u caawiyaan Ukraine oo ay u siiyaan taageero isugu jirta dhaqaale iyo military. Shiinuhu waxay si taxaddar leh u daawan doonaan arrintan. Sarreeye guud Scott Perry oo ah agaasimaha hay'adda sirdoonka difaaca ayaa sheegay bishii hore dagaalka Putin ee Ukraine waxay qaadan doontaa waqti ay ku xaliyaan iyaga. Saraakiisha dawladda
madaxweyne Xi Jinping ayaa si isdaba joog ah u diiday eedeymaha ah inay doonayaan in ay weeraraan Taiwan oo Shiinuhu u arko qayb ka mid ah dhulkiisa inkastoo uusan weligiis xukumin isla mar ahaantaana xukuumadda Xi waxay ka digtay in Maraykanku uu qaadayo qaab dagaal qabow ah oo ku wajahan Asia. Beijing waxay isku dayday in ay ka hortagto taas iyada oo xoojinaysa xiriirka ay la leedahay wadamada jasiiradda Pacifica iyada oo ku celcelisay sheegashada meelaha lagu muransan yahay ee badda koonfurta Shiinaha. Maamulka Biden wuxuu diiradda saaray dabeecadda isku xiran ee Yurub iyo Asia. Sidoo kale waxaa horseeday aqoonsiga sii kordhaya ee iskaashiga ka dhexeeya Beijing iyo Moscow iyo sidoo kale rabitaanka wadamada Asia sida Japan iyo Koreada Koonfureed si ay u cunaqabateeyaan Moscow duulaankeeda. dadku waxay yiraahdeen natiijadu waxay noqotay wada hadallo Mareykanku la yeeshay wadamada Asia oo ku saabsan dhacdooyinka Yurub iyo wadamada Yurub ee ku saabsan dhacdooyinka Asia ayay saraakiishu sheegeen halka wada hadallada la yeeshay wadamada Yurub ee ku saabsan Indo-Pacific intii lagu jiray maamulka Obama ay ahaayeen kuwa adag caqabado badan xambaarsan inta badan laga shakiyo waxay hadda yihiin wax soo saar qoto dheer isku duwaha Indo-Pacific ee aqalka cad Kurt Campbell ayaa u sheegay xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga bishii May. Dukumentiga amniga ee dib loo eegay ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka soo muuqdo qeexitaan cad oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya qataraha soo ifbaxaya ee ka gudba sida isbedelka cimilada iyo tartanka dhaqanka juqraafiyadeed. Mid ka mid ah dadka ayaa yiri meesha banaanka tusaale ahaan labaduba waa arrin ku meel gaar ah iyo sidoo kale goobta uu siyaasadda juqraafiga ka ciyaaro ayuu yiri qof kale. maamulka Trump ayaa daabacay istiraatiijiyadda amniga qaranka taas oo diradda saareysay madaxbannaanida Mareykanka December 2017. maamulka Biden ayaa daabacay hagitaanka istiraatiijiyadeed ee amniga qaranka ee ku meel gaarka ah Maarso 2019 laakiin wali ma daabacin istiraatiijiyadda amniga qaranka oo dhameystiran.